annagoo dareenkeena cabirayno waa kaga mahad celinayna gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed waxay nooga dhigan tahay caawa habeenkan dhalanoo kale waayo waxaan ka gudbaynaa dadban waxaan u gudbaynaa doorasho cadaalad oo qof iyo cod ah dawladda madaxweyne xashi eedeymaha dhinaca mucaaradka ay ka wajahaysaa qaybka in doorasho qof iyo cod ay sii socon doorasho qof iyo qora ay socoto maxaa lagu macneynaa wallahi 8 qof 7 qofood inta ma caawa taagan isuma dhiganto annaga dareenkeena baahideena waxay tahay dalka inay doorasho ka dhacdo ayagana dadkan waa dadkoodii inay isku kalsoonaadaan yimaadaan waa madaxdeennii prime minister wasiir madaxweyne dalkay soo xukumeen guusha ciday raaci doonta Allahu yaclam marka ma aha macnaheedu hadduu dalku doorasho aado in xasan sheekha soo laabanay ma aha macnaheedu waxay tahay dalka inuu ka gudbo dhibaatadii dadka lagu dilaayay dhaci iyo boobkii aan ka baxaynaa waxay ila tahay marka aniga aragtidayda jugjug meeshaadaan joogno haddaana aniga waxaynaynin adiga ma qaban kartid le waa intaas wallaahi tallaabooyinkii aniga marka hore mugdi baa nooga jira laakiin markuu madaxweynaha warta nabadda tegey uu isdiiwaan geliyey maba ka sheekay karaba ilaa iyo waxaan soo lugayna magaalada salkeeda ma dareemayno daal ma dareemayno ool waa faraxsanna marka wallaahi waxaan ugu baaqayaa dalka inay u turaan shalaba madaxtooyaday ku jireen annaga nagalama tashan maantana ayaga waxaan leenahay dalka doorasho aaday ولا مدحوين حسن ولا أي قعدنا الله قدرين معيه ده أنت بودا كجرتين هالدورنا دون